السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشركي inoo sii socday ee chapter 1 ee accounting ahaa waxaynu ka bilaaweynaa waxa weeyaan qaacidadan equation baynu ka bilaaweynay equation-kan ka bilaaweynay waxa weeyaan asset-ku wuxuu ku leeyahay asset-ku wuxuu ku leeyahay liability-ga oo loo geeyay owners equity-ga marka asset waxa weeyaan waa resource-ka uu business-ku leeyahay amba waa hantida uu business-ku leeyahay liability-guna waxa weeyaan deymaha amba wuxuu soo amaahdo business-ku deyma ah ee business-ku soo amaahdo ayaa liability ah owners waxa weeyaan wixii aad ku darsato amba waxaad ganacsigaaga aad geliso ee qarashaada ee capital ayaa owners equity ah haddaba what is a business transaction business-ka amba ganacsigo qaamu transaction-kiisoo dhacaya a business transaction qaabka transaction-ku business-ku dhacayo amba dhaqaalaha events or condition-kaasoo ku xidhanayiin directly change isbeddel toosoo ku imanaya financial condition taasoo saameyn ku keeni karta operation amba shaqadu qabanayo business-ka aad aasaastay amba business-ka aad samaynaysa haddaba November 2009 ayaa nin shirkad aasaasay shirkadda la yidhaahdo Net Solution haddaba shirkadda Net Solution lacag bay dhigatay bangiga 25,000 marka lacag ay bangiga dhigatay 25,000 asset-keedu waxa weeyaan 25,000 haddaba shirkaddii waxay samaysay investment maalgelin owners equity waxay imanayaa maalgelintay samaysay oo capitalkii 25,000 ba maalgelin bay ku samaysay oo business bay gelisay shirkaddii Net Solution exchange isbeddel bay samaysay 20,000 oo ku iibsatay dhul 20,000 ay dhulka ku iibsatay asset amba cash-kay haysatay waxa weeyaan 25,000 25,000 ay cash-ka haysatay waxay gelisay ganacsigii bay 25,000 ba gelisay dabeetana shirkaddii waxay u baahatay inay dhul iibsato 20,000 marka 25,000 ayaa waxaanu ka jaraynaa 20,000 aynu dhul ku iibsatay shirkaddu markaynu ka jarno waxay noo soo baxaya 5,000 capital amba owners equity-geennina waxa weeyaan 25,000 isla shirkaddii waxay u baahatay inay alaab soo iibsato oo alaabtaana ay ku soo qaadato deyn ahaan oo $1,350 oo ay bixi doonto mustaqbalka dhow marka alaabtay soo iibsatay waxaa soo kordhaya account payable oo noqonaya liability ayaa soo kordhaya waxaan haysanay cash ah 5,000 marka 25,000 aynu dhul ku iibsanay 20,000 oo ka mid ah alaab baynu soo iibsanay ah 1,350 capital-keennii owners equity-gu wuxuu ahaa 25,000 aynu investment business gelinay liability ayaa soo kordhay amba alaab aynu deynsanay oo mustaqbalka dhow bixin doono oo $1,350 totalka cash-keenu waxa weeyaan 5,000 supply-geenu waa 1,350 land dhul aynu ku iibsanay waa 20,000 waxa liability-geenu ugu soo biirinay waxa weeyaan accounting payable oo noqonaya 1,350 capital-keennii oo owners equity-na waxa weeyaan 25,000 oo investment gelinay amba ganacsi gelinay weli waxaa sii socda shirkaddii Net Solution
shirkaddii waxay bixisay adeeggaasoo lacag dhan ka soo gashay $7,500. iminka waxayna soo galay adeeg return earning bayna soo galay adeegaynu bixinay amba lacag bayna soo gashay. lacagtayna soo gashay waxa weeyaan $7,500. $7,500 baa kaashteenii asadkeenii markaa hantidaynu haysanay waxa ahayd $5,000. $5,000 ee asadka ahayd ee aynu haysanay waxa ku soo biiray adeeg aynu qabanay oo naga soo gashay lacag dhan $7,500. owners equity-geena waxaa $25,000. waxaa laakiin soo galay investment aynu ka helnay adeeg aynu qabanay $7,500. marka kaashkeeni wuxuu ahaa markaynu ka jarnay $20,000 oo laan aynu dhulku iibsanay waxaynu haysanay $5,000. $5,000 waxaa iminka inugu biiraya kaash ahaan $7,500. $7,500 marka loo geeyo waxay noqonaysaa $12,500. sidoo kale waxay bixisay shirkaddii expenses qarashaadkii ahaa mushaharka oo ah $2,125. sidoo kale guri kiradii ayaynu bixinay ah $8,000. utilities alaabooyin amba waxyaabahan waxaanu ku bixinay $450. waxyaabaha kharashiyaadka yaryar ay naga baxa sida socdaalka iyo moobilada iyo waxyaabahan waxaanu ku bixinay $275. haddaba expenseski waxaan ka jaraynaa hantideenii. markaan hantideenii ka jarnay waxaa lacag noo soo hadhay $3,850. haddaba alaabtoon isku geynay $2,125 loo geeyey $800 loo geeyey $450 loo geeyey $2,570. waxaa laga jarayaa kaashteenii oo ahayd $12,500 oo ah $3,650. waxa kaashteenii noo soo haraya waxa weeyaan $8,850. accounti payable wixii daily nagu lahaa aynu soo amaahanay liability-gani waa $1,350. capital stock-geena amba hantidaynu gelinay owners equity-gu geliyey waxa weeyaan $25,000 bay ahayd. lacagtiina soo gashayna waa $7,500 bay ahayd markaynu ka jarnay expenseska. shirkaddii net solution waxay iska bixisay liability waxaan soo amaahanay accounting payable-keenu soo amaahanay alaabtii aan supply-geenu soo amaahanay aynu bixinaynay mustaqbalka dhow waxaan iska bixinay $950 ayaynu bishii iska bixinay. creditors waxaan iska bixinay during the months $950. marka waxaanu ka jaraynaa $950 waxaa ka jaraynaa liability deyntii aanu soo amaahanay ahayd $1,350 waxaana inoo soo haraya $400. sidoo kale kaashteen inaynu ka jaraynaa waxaa inoo soo haray $7,900. sidoo kale shirkaddii bisha dhammaadkeedii lacag baa soo gashay $550. sidoo kale waxaa la isticmaalay $800 alaaba la isticmaalay. marka supply-ga expenseska isticmaalay waxaan ka jaraynaa return earning-giina soo galay $3,850 hadheegeena inoo hayd baan ka jaraynaa waxaa noo saaray $3,050. sidoo kale waxaanu ka jaraynaa supply-ga aynu isticmaalnay aynu soo iibsanay lacagtii ahayd $1,350 markaa waxaa noo soo haraya $550 ayaa noo soo haraya. shirkadda net solution weli example-keenii ma socda. waxaa soo galay $2,000 ayaa lacaga ayaa stakeholders ka soo